waxaanu ka afeefanaynaa in aynan muuqaalkan uga gol lahayn in aynu suurad xumayno juhdi iyo shaqo ay qabteen qof ama koox janaal ama warbaahin kale midkoodna keliyana waxaan uga gol leenahay in aynu wax ku bidhaamino oo dadku wax ugu tusaalayno isla markaana madadaalo ay u noqoto warbixintan. Prank waa nooc ka mid ah muuqaalada sida qarsoodiga ah qof ama dad looga duubo ayadoo ujeedku yahay in dadka daawadayaasha ah looga qosliyo. muuqaaladaas waxay noqon karaan kuwa qofka laga duubayo looga nixiyo, kuwa fajac ama kaag ku ridi kara, ama kuwa si uun qofka dareenkiisa caadiga ah wax uga bedeli kara. kadibna qofkaas laga yaabo ama ay suurtagal tahay in uu isna sameeyo falcelin la yaab leh ama qosol leh oo daawadayaashu ay ku maadsadaan. barankigu si uu macno ugu yeesho daawadayaasha waxaa qasab ah in qofka laga duubayo isaga oo warmoog ah muuqaalka laga qabto. laakiin haddii kan muuqaalka duubaya iyo midka laga duubayo ay isku og yihiin, markaas ma ahan baranki ee waa ruwaayad inta la isla qorsheeyay kadibna kaamirada horteed lagu jilayo. haddii isla muuqaalka noocaas ah inta la duubo kadibna dadka looga dhigo baranki, waa khiyaano inteeda la eg oo daawadayaasha lagu qaldayo. haddaba annagoo aan ku fogaan baranki qeexidiisa iyo macnayntiisa, waxaan warbixintan diiradda ku saaraynaa dhowr filim oo YouTube-yada ku jira kuwaasoo baranki lagu sheegay, laakiin aanu soo helnay in dadka muuqaalka ka soo muuqanaya oo idil ay ka warqabeen oo ay isla qorsheeyeen isla markaana isla ogaayeen, dadka la qaldayna ay daawadayaashu uun yihiin. muuqaalka koowaad, baranki ay duubeen Big Bro iyo asxaabtiisa. Big Bro iyo asxaabtiisa waxa ay daawadayaasha u sheegayaan in ay baranki ku sameynayaan nin kooxda ka tirsan oo lagu magacaabo Landere. asxaabta maanta waxaan rabnaa inaan barank ku sameyno maartay ninkii ahaa Landere. waxaan soo wadanay ninkana u soo wadanay micnaha Landere oo aan ogeyn ayaa si qarsoodi ah looga duubaya muuqaal ay ka dhalan karto falcelin aan caadi ahayn. haddaba muuqaalka laga duubayo iyo sheekada la soo dhisayba in uusan Landere ogeyn maxaa ka run ah, bal ila soco. marka koowaad, 4 qof oo Soomaali ah oo jidka lugeynaysa ama suuqa u socota, suurtagalnimada ay si siman ay ku wada socon karaan boqolkiiba waa wax aad u yar. mararka dhifka ah ee ay qaabkan u socdaanna waa marka filim ay jilayaan oo ay isku og yihiin. sidaas darteed Landere sheekadan waa uu og yahay, wuuna la socdaa, sidaas ayuuna safka qayb uga yahay si ay kaamirada u qabato. intaas waxaa laga yaabaa in aad igu diidid oo cadaymo raqiisa ay kula noqoto, laakiin ila soco, kuwa kale ayaan kuu soo wadaa. fogaanta qofka kaamirada haya ama aan badhahno meesha ay kaamiradu ku qarsan tahay iyo asxaabtan meesha ay soo lugeynayaan waa kuwa kala fog. laakiin isweydii, codadkoodu sidee nugu soo gaarayaan? waxaa hubanti ah inay isticmaalayaan microphone wireless ah, yacni microphone aan xarig ku xirnayn. microphone-kaas wireless-ka ah haddii uu Landere laftigiisa u xiran yahay ka waran, soo cadayn nagu filan maaha in uu sheekada si fiican u og yahay oo aan muuqaalkan lagu qaldinba. fiiri jeebka bidix ee surwaalka, waxaa si quman loo arki karaa microphone-ka wireless-ka ah ee u xiran ee codka siinaya kaamirada. sidoo kale fiiri gacantiisa bidix, wuxuu afkiisa ugu dhaweynayaa microphone-ka oo jaakada ugu xiran. marka isweydii, qofka isaga oo soo xirtay microphone-kii sheekada lagu jilayay oo haddana aan waxba kala socon sheekada oo la qalday isaga, sidee isku qaban karaan? xaqiiqda ugu dambaysa, markan kii askarinimada jilayay iyo Landere waxay isla gelayaan meel baabuurta gadaashood ah. qofkii kaamirada hayay waxaa ku adkaanaysa in uu helo muuqaal toos ah oo labada qof la wada arki karo. sidaas darteed waxa uu fiirsanayaa angle ama xagal uu ka heli karo muuqaalka oo dhammaystiran. laakiin la yaabku waxa uu yahay meesha uu kaamiramanku fariistay iyo halka ay labada nin taagan yihiin waa wax 2 mitir ama 2 tallaabo aan ka badnayn. kaamirada waxaa lala fadhiyaa lugta hore ee gaariga. Landere iyo ninka ku dhaganna waxay isku haystaan xagga dambe ee gaariga. waa dad aan kala qarsoomayn oo isu muuqda. fiiri ninkan askariga laga matalayo sida uu kaamirada u fiirinayo. bal isweydii, Landere ma arki la yahay qof asxaabtiisa ka tirsan ee meel u dhow kaamira kaga duubaya? waxaan filayaa in aan muuqaalkaas xaqiijin kale nooga harsanayn. muuqaalka labaad, baranki ay duubeen asxaabta Munir Official.
Muniir iyo saaxiibkiis Lee Caato ayaa ku heshiinaya in ay barankii ku sameeyaan qaar asxaabtooda ka tirsan oo dhismaha guriga dhinac ka jooga. Barankigu waxa uu ku saabsan yahay in ay labada nin dagaalamaan oo uu dhaco wax gacan qaad u eg si loo arko falcelinta ay sameyn doonaan asxaabta kale. Kaamirada meesha la dhigay iyo dhaqdhaqaaqa asxaabta qaarkood ayaa noo sheegi doona in barankigan yahay mid la isla qorsheeyay iyo in kale. Xaqiiqda koowaad, muuqaalkan waxaa la duubayaa xilli habeen bar u dhow sida ay iyagaba noo sheegayaan. waxaana lagu duubayaa qol sar ah. sidaas darteed qofkii si fiican u fakara wuxuu fahmi karaa in leerka yar ee guriga ku dhegan uusan ku filnayn iftiinka ay kaamiradu u baahan tahay. halkan waxaan ku xaqiijinayaa in la adeegsanayo nal ama faaro weyn oo kaamirada ku xiran. halkaas marka ay taagan tahay isweydii, dadka qolka soo geli doona miyaysan arkaynin nalkan weyn ee kaamirada ka iftiimaya, kadibna aysan ogaanaynin in muuqaal laga duubayo. kasoo gudub u imow xaqiiqda labaad. dadka kale celinaya labada nin aad ayay u dadaaleen si muuqaal qurxoon uu u soo baxo. jilliin cajiib ahna way dhigeen, laakiin qaarkood ayaa jilliinku ka halaabay. ficilada ay sameynayaanna waxa ay qeexayaan in wuxuu ay jilliin cad yihiin, kadibna baranki ama magacii kale ee la doonaba ha loo bixiyay. intaasoo dhan waxa ay caddaynayaan in tani ay tahay riwaayad si qurux badan loo jilay, laakiin soo saarayaasheedu ay ugu magac dareen baranki. xitaa si barankigan ay dadku u aqbalaan oo ay u aaminaan, Muniir iyo Lee Caato waxa ay sameeyeen dadaal xooggan si ay dadka uga dhaadhiciyaan in waxan ay baranki yihiin. dadka qolka soo galay ee dagaalka kala celcelinayana ay yihiin dad la qalday. xitaa waxa ay isu direen fariimo iyaga oo ka dhigaya in sheekada labadooda oo kaliya isla ogaayeen. laakiin wax walba waxaa noo cadeeyay qodobadii hadda aanu ka soo hadalnay. muuqaalka saddexaad, abaha oo ah majaajiliiste sheekooyinkiisa wax badan dadka ka qosliya ayaa janalka Manson soo geliyay muuqaal isaga iyo gabar lagu magacaabo Muna ay ku heshiiyeen in oday Cabdulle baranki lagu sameeyo. waxaan rabaa ninka Cabdulle inaa dhahdid ila uu leeyahay camal ma fahmino. abaha iyo gabadhu waxa ay ku heshiiyeen in oday Cabdulle laga yaabsado isaga oo aan ogeyn muuqaal laga duubo. laakiin u fiirso, muuqaalka soo socda ma baranki baa mise waa wax kale. bahasha si oo usnoo fahmin ya kaamirada. xaqiiqda koowaad, waxay noo sheegeen in kaamirada ay ku qarinayaan armaajo dhar uu ka buuxo dhexdeeda. fiiri xagasha ama angalka ay qabanayso marka ay kaamirada la taagan yihiin armaajada. haddana fiiri marka ay bilaabaan duubista muuqaalka xagasha ay kaamiradu jirto. halkaas waxaa ka cad in aan kaamirada la gelinin armaajada oo uu qof duubayo oo uu isagu maamulayo. in uu qof duubayo waxaa caddayn u ah, bal fiiri inta ay sheekadu socoto dhowr mar ayaa kaamirada zoomkeeda la dhaqaajiyay. haddaba kaamira armaajo ku dhex qarsan yaa zoomkeeda dhaqaajinaya oo weliba saxaya fareemka muuqaalka. xaqiiqda labaad, fiiri oday Cabdulle wuxuu dhowr jeer soo fiirinayaa kaamirada oo meel agtiisa ah taala. sidee nin kaamira arkaya loo qalday oo looga dhigay in sheeko laga duubayo isagoo aan u jeedin. xaqiiqda kale ee saddexaad, kaamiradan waxaa lagu dhex duubayaa qol yar oo mugdi ah, waxaana la isticmaalayaa nal faaro weyn sida muuqaalkii hore oo kale ah. marka oday Cabdulle sidee ku arki waayay kaamiradan faaraha weyn uu ku xiran yahay ee ninka uu ag taagan yahay ee tripodka ku xiran ee isaga wax looga duubayo. micnaha oo isku duuban waxa weeye sheekadan waa la isla wada ogaa. muuqaalka saddexaad waa muuqaal ku saabsan wiilal midkood la jilayo in la dilay si wiil iyo gabar kale oo filimka ka soo muuqan doona baranki loogu sameeyo oo laga shactiraysto falcelinta ay sameyn doonaan iyaga oo aan ogeynna in muuqaal laga duubayo. laakiin sidee wax u dhacayaan ila daawo. wiilka ay dhahayaan waan ka yaabsanaynaa oo isagoon sheekadaba ogeyn ayuu jaamacad ka imaanayaa waa waxba kama jiraan. wiilku waxa uu dhex fadhiyaa isla qolka wax lagu jilayo. inta sheekada la maleegayo oo idilna qolka ayuu dhex joogaa. marka sidee loo qalday qofkaas? waxaan filayaa waxaad isweydiinaysaa maxaa caddayn u ah in bile uu qolka dhex fadhiyay. si degan u fiiri muraayada yarta ah ee ku dhegan armaajada. waxaa laga dhex arki karaa bile oo fadhiya meel kaamirada agteeda ah, weliba isagoo isku aadisanaya
buugaagtii uu sheekada ku jili lahaa. waxaa laga yaabaa in aadan si fiican muraayadda uga dhex arki karin humaaga aan ku tilmaamayo, laakiin fiiri, mid ka mid ah buugaagta uu bilo sheekada ku jilayo si aan ku talagal ahayn ayuu muuqaalka uga soo dhex galay. qolka labadan qof ee sheekada isla dhisaya oo kaliya ayaa joogay, laakiin qofka saddexaad ee buugaagta toosinaya xagee ka yimid? isweydii. way iska caddahay in riwaayadna loo jilay oo magac ahaanna loo bixiyey prank.